taariikhdu markii ay ku beegneed 29 bishii Oktoobar sanadii 1956 ciidamada maamulka Yuhuudda ee Israa'iil ayaa bilaabay howlgal lagu magacaabay Muskatiir oo ay ku qaadeen saxaraha Sinai. ujeedada weerarka Israa'iil waxay ahayd inay qabsadaan kanaal Suez oo marinbiyood u ah maraakiibta isku xirta inta u dhaxaysa badda Mediterranean-ka iyo badda Cas iyo sidoo kale dalka Masar. dowladda Masar ayaa kanaal Suez u aragtaa muhiimad qaran oo lama taabtaan ah. howlgalka Muskatiir waxaa hoggaan u ahaa jenaraal u dhashay Britain oo lagu magacaabi jiray Sir Charles Kersley. markii hore waxa uu qorshuhu ahaa in weerarkan ay si wadajir ah u fuliyaan Britain, Faransiiska oo ay wehelinayso Israa'iil, balse Israa'iil kaligeed ayaa bilaabay 29 Oktoobar. Sir Anthony Eden oo ahaa ra'iisul wasaarihii Britain ee xilligaasi ayaa markii dambe sheegay inuusan ka warqabin weerarka hore ee Israa'iil. ra'iisul wasaarihii Israa'iil ee xilligaasi Ben Gurion ayaa taliyay ciidankiisa ee General Moshe Dayan ku amray in uu qorsheeyo weerar lagu qaado Masar oo uu ka baaraandego istiraatiijiyadiisa. subaxnimadii 29 Oktoobar 1956 weerarka Israa'iil waxaa hogaaminaysay diyaarad si loola wareego marinka saxaraha Sinai. dagaal culus ayaa ka dhac qarxay militariga Masar iyo ciidamada Israa'iil ee weerarka ahaa. maalintii xigtay Britain iyo Faransiiska ayaa soo saaray amar ay labada dhinac ku siinayaan inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda. Israa'iil waa ay sii waday howlgalka iyadoo Masar ka rajaynaysay inay sameyso weerar celin. hase yeeshee si ka duwan filashadii Israa'iil, madaxweynihii Masar xilligaasi Jamaal Cabdinaasir ayaa ku amray ciidankiisa inay dib u gurasho sameeyaan. markii uu madaxweyne Jamaal diiday inuu u hoggaansamo dalabkii Britain iyo Faransiiska, xulafadu waxay bilaabeen duqeymo ay ku xakameynayaan ciidamada cirka ee Masar. guuto ka mid ah ciidamada Britain ayaa la wareegtay garoonka ciidamada cirka ee Al Jamiil, halka ciidamada Faransiiska ay qabsadeen dekedda Fuad. 5 November oo ku beegneed qiyaastii 3 bil kadib markii uu Naasir qarameeyay kanaalka, waxaa soo weeraray Britain iyo Faransiiska. waxay weerarkooda ay ku bilaabeen duqeymo bambooyin loo adeegsaday kuwaasoo ciidamada cirka ee Masar ay ku kalifeen in ay dhulka ay joogaan oo ay soo daataan goobihii ay weerareen. muddo 45 daqiiqo gudaheed guud ahaan iska caabintii dhinaca cirka ee Masar waa laga adkaaday. ciidanka badda ee Britain ayaa u fududaatay inay diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo saanad iyo raashin ay gaarsiiyaan ciidamadooda. maadaama saldhigga ciidanka cirka ee Al Jamiil la qabsaday, ciidamada dilaayadaha ku booda ee Britain waxa ay u dhaqaaqeen dhinaca bari ee dekedda Saciid iyagoo sii wajahay iskoorimaad culus oo ay ku qabsadeen wadada ku qabsaday. caawinaadda ay ka helayeen dhinaca hawada awgeed waxa ay ka adkaadeen ciidamadii Masaarida ee difaacanayay dalkooda. 6 bishii November xeebaha Masar waxaa weerar xoog leh ku soo qaaday maraakiib dagaal oo xambaarsanaa taangiyo iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca. waxaa kale oo wehelinayay ciidamada Faransiiska. durbadiiba waxaa la jiibiyay militarigii Masar. isla maalintaasi habeenkeedii ayuu xogayay qaramada midoobay xilligaasi Dag Hammarskjöld waxa uu codsaday in xabad joojin la sameeyo. ciidamada Britain iyo Faransiiska tallaabadooda xigta waxay ahayd inay isku dayaan la wareegista guud ahaan kanaal Suez, balse waa la joojiyay arrinkaasi oo isku dayo diblomaasiyadeed ayaa lagu hakiyay. sida laga soo xigtay khubaro military oo si aad ah ugu koorgalay arrintaasi, howlgalka xulafada la safneed Israa'iil wuxuu hayay wadadii guud taariikhi ah. laakiin marka la eego siyaasadda caalamka, Britain waxay qaaday tallaabo qaldan, sidaas awgeedna weerarkan oo ahaa guul dhanka militariga laga gaaray waxa uu dhanka kale sababay in la bahdilo Britain, maadaama Mareykanka uu diiday inuu taageero Britain oo taageero diblomaasiyadeed looga sameeyo golaha amniga iyo sidoo kale goobaha kale ee fagaarayaasha diblomaasiyadda caalamka oo wajigabax ay Britain kala kulantay. waqtigaasi Mareykanka oo la xilfaaltamayay midowgii Soofiyeed waxa uu isku dayay inuu hormuud u noqdo hanaanka wadamada ee gumaysiga ku jiray in ay xornimo ka gaari lahaayeen. siyaasad ahaan Britain waxaa guul ay ku galdareysatay go'aanka ay ku qaadatay inay qabsato kanaal Suez. madaxweynihii Mareykanka oo lagu magacaabi jiray Dwight Eisenhower ayaa si aad ah uga carooday weerarka Britain ay ku qaado Masar. waxaa sidoo kale soo baxay warar sheegaya in gudaha Britain xitaa ay ka jirtay caro dadweynuhu ay ka qaadeen tallaabadaasi. dibadbaxyo badan ayaa ka socday magaalada caasimadda ah ee London. Britain dhowr sano ka hor xilligaasi ayay ka soo baxday dagaalkii labaad ee adduunka, kaasi oo dhaqaalaheeda si burbur baahsan u geystay oo sababay xasarado ba'an isaga oo dhaqaalaha uu sagxadda soo taabtay. lacagta ganiga ayaa aad u qiimo beeshay, shaqo la'aantuna waa ay sii kordhisay. xaaladahaasi marka ay taagnaayeen,
Mareykanka ayaa lagu tilmaamayay inuu yahay dalka ku fiican xulashada dagaalada uu galayo. Midowgii Sofiyeed waxa uu hogaaminayay Ruushka ayaa ku hanjabay inuu ku biiri doono dagaalka isagoo garab military siinaya Masar waa haddii Ingiriisku iyo sidoo kale Faransiiska iyo Israel oo isgarabsanaya ay jooji waayaan duulaanka ay ku hayaan Masar ayna isaga bixi waayaan. Ciidamadii xulafada ee Britain iyo Faransiiska oo damacsan inay gacanta ku dhigaan Kanaal Suez, xaaladuna ay sii cakiran tahay hanjabaada Ruushka kadib ayuu madaxweynaha Mareykanka ku amray Britain iyo Faransiiska inay si degdeg ah militarigooda ula baxaan oo ay baneeyaan gacan biyoodka. Halkaasi ayuuna kusoo afjarmay dagaalkii khalkhalka geliyay marin biyoodka muhiimka u ah caalamka. Bishii Luulyo ee sanadii 1956 madaxweynihii Masar Jamaal Cabdi Naasir ayaa ku dhawaaqay inuu qarmeeyay shirkadii Faransiiska iyo sidoo kale Britain laga lahaa ee gacanta ku haysay maamulka Kanaal Suez, waana halkaasi meesha dhinacyadu ay iska qoomeen. Mas'uuliyiinta Masaarida ayaa doonayay in dakhliga ka soo xarooba kanaalka lagu maalgeliyo mashruuc lagu sameynayay biyo-xireen. Mareykanka ayaa hore u diiday inuu maalgeliyo dhismaha biyo-xireenka. Masaaridu waxay aaminsanaayeen in canshuurta 5 sano laga arooriyo maraakiibta isticmaalaysa kanaalka oo kaliya ay ku filnaan karto dhismaha biyo-xireenka. Muhiimad weyn ayuu biyo-xireenkaasi u lahaa qorshaha ay Masar ku doonaysay inay ku gaarto horumar dhanka warshadaha ah. Britain iyo Faransiiska labaduba waxay siyaasadaha madaxweyne Jamaal Cabdi Naasir iyo ficiladiisa kale u arkeen kuwo halis ku ah danahooda gobolka. Labada dalba waxay isku raaceen in haddii horumar laga sameyn waayo dadaalada ka socda miiska wadaxaajoodka ay ciidamadooda u diri doonaan si ay ula wareegaan kanaalka, haddii laga maarmaan noqotana ay xitaa xilka ka tuurayaan Jamaal Cabdi Naasir. Faransiiska waxa uu xitaa doonayay inuu meesha ka baxo Jamaal maadaama madaxweynaha Masar uu taageeri jiray kooxaha fallaagada ah ee la dagaalamayay xukunkii gumaysiga Faransiiska ee kolkaasi ka jiray Algeria. Marka dhanka laga eego Britain iyo Faransiiska oo saaxiibaha waxay u arkayeen Jamaal Cabdi Naasir inuu ku yahay iyaga khatar amni. Ra'iisul wasaarihii Britain xilligaasi Anthony Eden ayaa dagaalka waxa uu hortiis u yiri waxa uu muranka nagala dhaxeeyo ma aha Masar iyo dunida Carabta, waxaan is haysanaa Cornel Naasir. Waxa uu cadeeyay inuu yahay nin aan ku kalsoonaan karin ama aan lagu kalsoonaan karin oo isgadgadis badan. Isla xilligaasi madaxweyne Jamaal waxa uu dunida Carabta looga aqoonsanaa inuu yahay geesi Carabeed, sidii gadaal dambaba looga aqoonsaday madaxweyne Saddam inuu yahay geesi Carabeed. Waxaana xilligaasi uu ku lahaa shacbiyad ballaaran gudaha ummadda Carabta oo aragtay nin lidi ku ah gumaysiga ee Ingiriiska iyo Faransiiska iyo reer galbeedku ay ku hayeen dalalkii Carabta ee xilligaasi soo korayay.